xogayaha duulista hawada xisbiga mucaaradka ee UCID Bashiir Xamari iyo sidoo kale xogayaha warfaafinta Yuusuf Keita ayaa shir jiray oo si wada jir ugu qabteen xarunta xisbigaasi waxay kaga hadleen sidoo kalena ay bogaadiyeen gudida anshaxmarinta ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ay sheegeen inay wax ka qabteen xisbiyadii ololaha ka waday gobolada Soomaaliland ee gaar ahaan xisbiyada wadani iyo kulmiye hadaladoodina waxa kamid ahaa mahadnaqnay dhaliilayna maanta mahadnaq cusub baan u jeedinaynaa sababtoo ah sharcigii yaalay ayaanu awalba anagu lahayn ha lagu dhaqmo haddii lagu dhaqmi waayana cidii ku dhaqmi weyday wadada ay leedahay ha laga maro alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaad moodaa in si wanaagsan guddiga aan shucayn kastoo ganaaxa aan weli dhaliilayno haddana sidii la doonayay ay u shaqeeyaan sidoo kalena waxay soo jeediyeen in dadka kala taageera xisbiyada kala duwan aan loo adeegsan rabshadaha iyadoo muddooyinkii ugu dambeysana xisbiyada wadani iyo kulmiye taageerayaal ay sameynayeen rabshado dhaqan ku cusub siyaasadda isla markaana foolxumo ku ah nidaamkii dimuqraadiga ahaa aynu qaadanay ama nidaamka axsaabta badan dhaqankaasoo labada xisbi ku soo kordhiyeen saaxadda siyaasadda oo ah in baabuur la jajabiyo iyadoo group loo eedeynayo imika labada dhacdaba way ku dhaceen labada xisbi faa'iidadeediina maanta way hayaan aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa in dhaqan inta lagu duulo xafiis dabadeed guryaha iyo lala baxo daaqadaha iyo albaabada lala baxo aad iyo aad baan ku cambaaraynaynaa gacanta booliskani ku jirtaa waxaan leenahay tallaabo adag ha laga qaado labadubana way sameeyeen maaha mid kaliya labada xisbiba way sameeyeen aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay labada xisbi Soomaaliland xal uma aha maanta Soomaaliland badbaado uma aha waxay marayaan in la yiraahdo hebel baa kulmiya iyo hebel baa wadan iyo gurigiisa aynu shidno waa ayaan darro weey in dabka iyo biyaha la kala qaadan waayo cadawtinimada dadka masaakiinta ay marka horeba sixir bararku aafeeyay ama dhagabeelka ku riday isla markaana niyad jabka iyo tiiraayada la tiicayeen haddana culaad la isu geliyo wallahi waa ayaan darro Ahmed Khalid Farax Ariel TV Hargeysa